kulan ballaaran oo ay maanta isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka mid ka mid ah beelaha dega gobolka Sool oo maanta shir ku yeeshay gudaha magaalada Laascaanood ayaa waxay kaga hadleen arrimo badan oo quseeya ay ka talinta magaalada Laascaanood. odayaasha beelweynta ugaaryahan ayaa qaadacay guddi ka kooban 5 xubnood oo maamulaya cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood lana shaqeynaya hay'adda MSF oo ah hay'ad maamulaysa sanadada soo socda cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood qaadanaysana shaqaale badan. Caaqil Cabdirashiid علي الشريعة ayaa ugu horeyn kulankaasi ka hadlay waxana uu ku dheeraaday guddi ka kooban 5 xubnood oo maamulaya cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood lana shaqeynaya hay'adda MSF. guddigaas oo uu sheegay in beeshoodu haba yaraatee waxba ku lahayn waxana uu ugu baaqay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo hay'addaasi. bacdi waxaan halka ka soo jeedinaynaa annagoo ah bulshada reer Sool qayb ka mid ah oo degta degmada Xudun iyo Talaax iyo Laascaanood tabasho aan ka tabanano hay'adda MSF oo ah barnaamijka hawlgelinta ay gobolka Sool ka qabanayso sida ay u maamulayso dadka sokeeya ay maamulayaan arintaas oo aan ka tabanano barnaamijka aan ku lahayn iyo saamiga aan ka mudanahay waxaan fariin u faranaa hay'adda inaan hawsha barnaamijka si loo maamulay aan waxna galaya aan ahayn kuwa ka sokeeyo ama maamulka ku tiirsanaa barnaamijka ku tiirsadeena inaan aqbalayn oo aan aqbalano waxaanu jid iyo daw u leenahay iyo karaamadeedu waxa ay tahay oo saami qaybsiga sida bulshada deegaanka degan ay u kala mudan tahay. gobolka Sool waxaad moodaa in cidina ku habsatay dad laga habsaday ma shaqeynayso barnaamijkaas kuwii ka tago meelaha ka soo hadlayana ma lihin kuwa jooga oo ka hadlaya waxay mudan tahay iyo waxaan xuquuq u leenahay annaga maamulna u cabanay laakiin deegaan ka hadlana taasaan waa hadal aan ku lifaaqayo. beesha maxamed siyaad halkan isugu timi laakiin degmadu meesha ay dhakhtarku ay wax ka qabanaysaa hay'adda MSF waxa weeye waa degmada Laascaanood oo isbitaalka weyn. waxaa dhacday in guddi loo sameystay hay'adii waxaa dhacday in la yidhaahdo guddiga ugaaryahan guddiga kuma jiro bal ninka dhir soo tiriyay ayaa ka tagay horta muxuu tiri waxaan leenahay war anagu dhulbaxantinimo aan ogol lahay wax wada lahaanshaan ogol lahay laakiin waxa weeye in la isdulmiyo oo waliba la dulmiyo haday hore u dhacday ama hore loo dulmiyay maanta dib u yeelimayn guddiga la sheegayo ee ay dadka gaar ah qorteen baan aqbalayn saami qayb laga sameeyaan ogolayn waxa weeye baashi ilaa dhulka la dhigo oo halka xeerada silkeeda la isugu yimaado in la isugu yimaadaan ogol lahay waxaan kala aad u eedaynaya oo cambaaraynaya maamulka guud ahaan ka jira caafimaadka gobolkani adeer waxa weeye maamul loo dhayahay ama baha caafimaad loo dhayahay maaha wasaaradda caafimaadka waxaanu gaarsiinaynaa in bahda caafimaadka gobolka Sool hoos loo eego maamulka gobolka qaabka uu shaqeynaya in hoos loo eego maamulka degmada in hoos loo eego waxa soo naadeer dhibaato ka jirta dil la isarki waayo oo indhaha la iska laliyo oo la yiraahdo anaga halkan aan buuxinay adeer dhici maysto haddaan hore uga foorsanay walaana dib uga foorsanay bil marka waxa weeye arinta dhulka la dhigo hay'addan waxa weeye ha maqnaato ilaa inta hawsha lagu heshiinayo ilaa iyo saamiga beesha haday tahay guddi haday tahay yani wax qaybinta la dhameynayo tabasho aanu muddo badan ka dul qaadanay oo de waxba iska bedeli waayeen marka waxaanu rabnaa haddii aanu de waxba isbedeli waayaan de mugga dadku inuu isaarko inay soo baxdo dadku inuu isaarko inay soo baxdo sidaasaanu arintooyadu waa tabasho waxa weeyaan wax badan oo aan la tirin karin laakiin tan ugu dambeysay hay'adda la sheegaya ee hadda hawsha ka wada gobolka Sool degmada Laascaanood iyo hareeraheeda sida ay loo maamulay ama sida loo maareeyay aanu aad u aragnay oo waliba ka hadalay ma aqbalayno arrimaha sida ay u soconayaan ma aqbalayno wax la yiri waayeelka horta saacana loogu barxaa waxaanu idin leenahay gobolka Soolow aan dib isu wareysano aan tashano hadaan doonayno inaynu wax wada qaybsano inaynu maxaan ku dhahday hawsha nin walba meeshuu leeyahay uu ka galo gobolka horuu maro aynu is aragno aynu wax qaybsano haday sidaa noqon weydo wax badan baa ina ka lumaya waxaan horta marka hore fahmaynaa hay'addu waxa la leeyahay bari imtixaan bay qaadaysaa waxa imtixaan ay qaadaysaa inaanu jirin hawsheeda oo dhan inay dib u dhigato ilaa aanu annagu saxayno hay'adda lama durayo ma lihiin gobolka ma soo gali karto laakiin waxba ka soo wixii ka soo mala saxaya
dad baa wax abaabulay siyaaq khaldan baa wax loo la isugu yani isu geegeeyey wixii la khalday in la saxo ayaan baa muhiimad u tahay horta hay'adda lama doonayo qodobkaasu hay'addan hay'adaha ugu dambeysay gobolka sool waxa ku lifaaqan hay'adaha waa la garanayaa intay meel kala joogaan waa la garanayaa gobolka xisaabta baa loo qoray rasaabka guddiga nabadgelyada guddiga degmada guddiga caafimaadka mid walba waxaa loo qoray xisaabtan meeshay ku dambeeyeen iyo meeshay galeen iyo cidda u shaqeeyaan inaan ogaano qodobka tawakkal qodobka hay'addan qayb leh xaq waxa aan u leenahay qaraacad baan qaadanaa cidana ma sigto waxna mustaqbal ma jira qaraacad baan qaadanaa waxaan qayb xaq u lahay waxaan xaq u lahayn ma doonayn tawakkal waxaan maqlayaa degmada wax lagu soo celiyay isticmaalo arunta ma garanayo qorsheeda iyo soo loo maray deegaanka degmada marka la yiraahdo saxaanood waa la yaqaanaa dadka deegaan tirsigiisa iyo deegaanka iyo musaskiisa waa la yaqaanaa saddex meelood iyo bahal magaalada iyo fatuud iyo maxamed iyo qarqar midna awaya maxamuud garad bahra same iyo madax bahal magaalada degan waa la yaqaanaa inta wax ka baxsaniki kara qaba anoo taaqoys laakiin gobolka iyo hadalka sare wixii wax ku doonayaan saddex meeloodkeeda iyo maantinimadeeda dhulkeeda ka cayaarto buuqda waa gobol meel walba waa gobol hawaya dadku waa uu kala jabayaa degmooyinka waa la kala leeyahay deegaanka waa la kala leeyahay mid walba in sidaa loo ogaado weeye